السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya soo dhawaada. Dhibka na haysto ruudkiisa aan rabaa maanta inaan wax yar oo ila taa ka iraahdo aan ka dhaho. Dhibaatada na haysata waxay tahay qofba qofta kaleeto xuquuqdeeda inuusan siinaynin. qofba qofta kaleeto qaladkeeda u jeeda ma ogiya xaqeeda inuu ka qaato rabaa. Intaasna waxaa keenay ilmaha markay yaryar yihiin la baraa adduunyadan. Waxaanan aqoonin cunuga qaldan ilmaha autismka oo dhibaatada yacni qabo waa la ogyahay dadka ka soocan yihiin. Markaas qofka dhibka inuu yacni isyaalyeel u geysanayo inuu jirro u geysanayso in la kala ogaado ma naqaano. waxaanan aqoonin waxyaalaha effect garay well-being waxyaalo badanaa naga maqan. qofkan markuu cunuga kale wax ka qaato nurseryga joogo ummadahan caalamka waxaa la yiraahdaa adima iskale waxaan may hebel soo iskama laha hebel wixiisa si ama si sharaf la uga qaado taan taken wax la yiraahaa la baraa adiga this time adaa iskale qoftaana this time oo leeyahay kama daba hadli kartid. annaga taan takinki nalama soo barin early stages of life hebel u daay iyo waxaas dhaaf saaf nin raga ah iyo sidii loo dhahay waa kaas arrimayn meel dhaadheer gaar marka ruudka laga soo dhisay ciyaalka in la baro taan takinga waa very important. qof kasta inuu ninku gabadha uu soo guursanayo xuquuqdeeda dareemo waa muhiim oo uu u dareemo qof bini aadan oo asaga nolosha kula soo shirkowda. ma aha waxa soo qadato meel ka soo ama waxa meel ka soo qaad ama waa lagu doono ama waa soo tuugtay ama waa soo sabata adaa uun rabitaanka lahayd hadday xataa iyada lahaydba. qoyska markuu dhismo agreement ku dhisma min imsaakin bimacruuf aw tasriixun biixsaan waa ruudka halaysan oo kamid yahay asagana waxyaalahaas detail insha allah next xalaqada kala soo gelin doonaa. laakiin qof kasto haddaa qofta qaladka gasho النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وير وخالق الناس بخلق حسن. يعني أخلاق ذا وناكسن ووح إلهي سبحانه وتعالى ومديس أو أدر يا رسول كيسو أدر دارمان لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. يعني وحاوي ضيشوا وناكسن النبي قال وصدقنا ذاتك موضع جرمي ذاتك موضوع مجرمي معاي جرمي wanaaga hadaa weyso daalimaa tahay dulmigana wuxuu ku geynaa ilaa iyo jidkiisa ilaa naarta oo sii socdaa kan wanaagana ilaa jannada. waa inoo xalaqadeena dambe insha allah wax badan aan ku gorfayn doono. waa la dhiban yahay dhibka allah naga kor qaado qof walbana qofta kaleeta u dareenta xuquuqdeeda. qolyahan meesha ku shiraayo oo gobolada iyo waxay ka yimideen la leeyahay gobolka banaadir meesha centerka ahayd haddaana dadka ku nool aysan xuquuqdooda helin gobolada kalena dhismahooda waxba gooniya ma keenayo. isu dareema horta qof walbaba say teeda u rabto qofta kale ha u rabto si dowlad iyo horumar aan u gaarno. madaxweynaha hadda joogane waqtigii loogu talagalay sanadu ku darsaday tartiib walaalkay ummadda iska fasax si aan dhibaatada usii badan wixii hadda kadib yimaado amaama laadaa lagu haystaa. meeshaana qabyaaladani waxaa nagu soo noqnoqonaya waa been nimanka waa isla wada shaqaystaan tuugada ah yaana la dhicin annagaana loo soo socdaay. tawfiiqdii khayrka rabbi taam ha nooga dhigo waa amina advice oo idin leh Soomaaliya international qabyaalada good communication aan barano nafsadeena aan wanaag isula xiriirno ummadda kalena aan wanaag kula communicate garayno intaas oo ay dunida wax yar waaye aan ka faa'iideysano ma tawfiiqana ilaa billah.